waa maxay cryptocurrency horay ma isu weydiisay su'aashan maxaase caalamkoo dhan loo wada hadal hayaa aan hal iyo labo ka tusaaleeyo lacagta digitalka ee cryptocurrency loola baxay waxa ay hana qaaday sanadkii 2009 markii la ikhtiraacay nooceeda bitcoin-ka loo yaqaan wixii bariga ka dambeeyay boqolaal jaad oo cryptocurrency-yaha iyo faracyo ayaa dagaalada ku soo biiray maantana taranku waxa uu marayaa in ka badan 10,000 oo jaad oo kala duwan qiimo aan la malayn karin ayay muddo kooban kasbatay trilyanno ayaa lagu tilmaamaa bitcoin keligii mar waxa uu gaaray qiimo dhan 60,000 oo dollar halkii shilinba kuwa kale oo lacayna ayaa iyana horay u dhaqaaqay cryptocurrency maaha lacag cadaan waa lacag digital ah oo dagaalada internetka taala waxaad ku diri kartaa ama ku heli kartaa internetka gudihiisa adigoo isticmaalaya telefoonkaaga ama kombiyuutarkaaga qayb waxa lagu soo koobi karaa sida Wafi ama EVC Plus caalami ah waxa cajiib ah uma baahnid bangi cid idin dhaxaysa adiga iyo cidda aad macaamilaysaan haddaba sidee bay xoolahaagu u xafidan yihiin waxa xafidaya nidaam loo yaqaan blockchain waa sidii diiwaan dadweyne oo ballaaran oo lagu qorayo mar kasta oo wax la kala iibsado ama lacag la isu diro diiwaanka xogtii gasha waa mid sugan oo xafidan isdabamarin musuq iyo jeebsiib midna ka dhaqin safar degdegay ayay sunuudan digitalka ay soo martay tan iyo sanadkii 2009 iminka waxa loo saadaalinayaa inay noqon karto sahayda lacageed ee mustaqbalka waa sooyaal ilbaxnimo fursado iyo xiiso isku bahaystaan cryptocurrency lacagta casriga ah